waa buug la xiriira sixirka iyo jinka hadii aad akhridana ay kaaga iman karto dhibaato waana buug marka aad akhrinaysid ee soo xaadirayaan jinka kuguna soo xoonsamayaan waa buug ay adeegsadaan sixiroolayaasha waxayna ka helaan awoodo u suurtagelinaya in ay ku fushidaan danahooda hadaba si aad uga ogaato wax badan nala joog oo ahna cidleen ilaa iyo dhamaadka muuqaalka buuga Shamsul Macaarif al-Kubra waxa suurtagal ah in aad hore u maqashay buugan waa buug ay ku duugan yihiin sir badan oo la xiriira wax ka ogaanshaha jinka iyo sheedaanka waana buug marka aad akhrinaysid ay soo xaadirayaan jinka waxa qoray nin lagu magacaabo Axmed Cali Buuni 622 hijriyada waa buug hadii aad akhrido ay suurtagal tahay in aad la kulantay jinka sheekana idin dhaxmarto waa buug la aaminsan yahay in uu noqorin Axmed Cali oo kaliya balse ay la qoreen jin iyo shayaadiin kale sidoo kale culimada badankoodu wax ay aaminsan yihiin in ay tahay dambi akhrisashadiisa soo iibsigiisa iyo ka ganacsigiisaba lacalla hadii aad damacdo in aad akhrisid buugan ha ku akhrin cod sare oo ka akhri indhaha sababtoo ah hadii aad ku akhrisid cod sare waxa suurtagal ah in ay kaaga imaato dhibaato laakiin ogsoonow ma ahan buugan mid aan kugula talinayo in aad akhrisid marna This one book after Harriers taariikhda buugan wuxuu u laabanayaa qarniyadii dhexe waxa la dhahaa buugan wuxuu keed weyn u yahay dadka doonaya in ay bartaan sixirka oo ay la midoobaan caalamka qarsoon ee jinka madaxdana uu yahay Iblis sida aad ku arkaysid sawirada ku yaal buuga iyo qayb kamid ah qoraalada ku qoran waxay suurtagelinayaan in qofku uu yeesho awood ka duwan tan dadka caadiga ah oo wuxuu adeegsanayaa jinka waana shakhsiyaadka anagu u naqaano sixiroolayaasha waa buug hadii aad doontid barashadiisa ay jinku kuugu xirayaan shuruudo ay kamid tahay in aad u sujuudid iyaga iyo in aadan barin qof kale waxyaabaha lagu bari rabo adiga oo aan amar ka haysan iyaga hadii aad buuxiso shuruudahaas oo ay ku soo dhaweeyaan jinka ayna ku baraan hadii aad ku talax tagtid barashadiisa waxaad gaaraysaa heer ay kugu daba feelaan jinka amarkaagana qaataan oo ay ku fuliyaan ujeedooyinkaaga waxayna sidaasi u sameynayaan jinka oo ay kaaga dambeynayaan waxay gaareen ujeedada ay ka lahaayeen oo ahayd in ay ku baadiyayaan oo aad la naartagtid iyaga ujeedooyinkoogaasna Ilaahay in badan wax uu noogu cadeeyay quraankiisa buugga saddexaad waxa lagu magacaabaa Sefdo Monarchia Diamond wuxuu soo muuqday buugan markiisii ugu horeeyay qarnigii 16aad waxa qoray mid kamid ah culimadii fiisigiska waxaana lagu magacaabi jiray Johann Weyer aragtida buugga waxay ku saleysan tahay sharaxida iyo wax ka ogaanshaha 619 jinsiyadood ee uu kala baxo jinka kuma eka oo kaliya buugan kala saarida jinsiyadaha jinka oo xitaa waxa laga dheehan karaa dhaqamadooda iyo ilbaxnimadooda ama xadaaradahooda waxaase ka siyaab badan caalimka cilmu nafsiga looga daba fariisto ee Sigmund Freud wuxuu jeclaa buugan wuxuuna yiri buugan waa buuga kaliya ee aan akhrintiisa sida weyn ugu dheefay maxaa yeelay waxaan ka bartay sida loo helo waxyaabaha qaaliga ah looguna guuleysto wixii ugu weynaa ee aan ka bartay wax uu ahaa sida looga faa'iideysto waqtiga oo wanaagana loo xado gunti iyo gunaanadka barnaamijkeena waxaan idin kugula talinayaa in eedan akhrin buugtaas maadaama aan nahay ummad muslimiin ah barashadiisana ayna ogoleen diinta islaamka akhrintiisana ayna wax dan ah inoogu jirin adduun iyo aakhiraba maantadan intaas ayaan ku ekeenaynaa barnaamijkeena wassalaamu calaykum si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dheh oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelka Xoghaye nagulana soo biir caalamkan cusub aadna ka faa'iidi doontid xogo iyo dhacdooyin la yaab leh